Bismillahirrahmanirrahiim saaxiibayaal soo dhawaada waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal waqtigan ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in saakay aroortii ciidamo daacad u ah maamulkii hore ee Cabdicasiis Laftagareen in ay weerar culus ay ku soo qaadeen maamulka uu hogaamiyo Sheekh Aadan Madoobe ee ku sugan magaalada Baydhabo. Wararkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo oo la sheegay in khasaaro kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi ka socda magaalada Baydhabo. Afhayeen u hadlay ciidamada daacadda u ah Laftagareen ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda ay gudaha magaalada Baydhabo ay ku sugan yihiin isla markaasina ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan magaalada Baydhabo. Waxa uuna ugu baaqay shacabka reer Baydhabo in ay isugu soo baxaan wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi si ay taageero ugu muujiyaan maamulkii hore ee Cabdicasiis Laftagareen oo iminka talada Baydhabo dib ula wareegaya. Dhanka hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ee Sheekh Aadan Madoobe ilaa iminka wax war ah kama soo bixin. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadal dagaalka sida tooska uga socda magaalada Baydhabo oo ay xaaladiisu ay marka kasii dambeysa ay sii daranayso. Shacabka magaalada Baydhabo ayaa waxa ay walaac xooggan ka qabaan in mar kale lagu dul dagaalamo iyaga oo wadnaha farta ku haya. Waxaa wararka hordhaca ee ka imaanaya magaalada Baydhabo ay sheegayaan in khasaarooyin kala duwan oo shacabka soo gaaray ay jiraan walow aan war rasmi ah laga hayn inta uu la egyahay khasaarahaasi. maamulkii hore ee Koonfur Galbeed ayaa dhowr jeer isku dayay in uu magaalada Baydhabo uu la wareego balse ma aysan u suuro gelin sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada daacadda u ahaa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo ku sugan magaalada Baydhabo. Sida uu sheegay waxa uu yiri in markan maamulka Baydhabo ay dib ay ula wareegeen isla markaasina magaalada Baydhabo ay tahay mid ammaana. wixii warara ay ku soo kordho xiisada ka tagan magaalada Baydhabo saaxiibayaal dib ayaan idinkaga soo sheegaynaa haddii waqtigu inoo saamaxo.